kulan wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka warbaahinta xogta wararka qodobada warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo oo si maamuus la'aan ah loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi socdaalkiisa oo loogaday in uu xambaarsan yahay laba arrimood oo halis ku noqon kara qadiyadda Soomaaliya qodobada xasaasiga ah ee sida dahasoon ay madaxweyne Farmaajo iyo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta ay uga wada hadli doonaan inta ugu xasaasisan xogta wararka ayaa heshay madaxweyne Axmed Madoobe oo ugu dambeyntii nabad iyo nolol si rasmi ah iskugu dhiibay waxa uu codsaday in la siiyo lacag bari hore mar loo ballan qaaday balse dalabkiisa cidina ugama jawaabin waraaqda lagu soo xirayo mid ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada awoodda sheegtay diyaarinteedu waxa ay ka socotaa waddan Soomaaliya daris la ah oo siyaasadda dalka aad saameyn ugu leh xogta wararka ayaad ka daawan doontaan madaxtooyada Puntland oo aan cabsi laga seexan madaxdii asbuuc ka hor dabaaldegayay oo farxaddu ay ka muuqatay waqtigan muruga iyo qoorta u suran waraaqse la gaarsiiyay Garowe maxaa ku qornaa walwalku halkaas ayuu ka abuurmay daawadayaal faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa askar ajnabi ah oo lagu dilay warar ka dhacay Soomaaliya ila deegaanka ah ayaa xogta wararka u sheegay in ay arkeen meydadka ajnabi gubanaysa ugu yaraan 10 dawladood oo asbuucan lacagtii ugu badnayd Soomaaliya u soo diraya si ay u abaabulaan dagaal sokeeye oo looga biratumayo magaalada Muqdisho lana doonayo in lagu burburiyo rajada dawladnimada Soomaaliya maxkamadda sare ee Soomaaliya oo war ka soo saartay dacwadii uu dhawaan u gudbiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa dacwadaas iyo sida ay u qornayd madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland khilaafkii ugu xoogganaa ayaa soo kala dhex galay saacadihii aanu soo dhaafnana xafiisyada madaxtooyada ee magaalada Hargeysa qaarkood albaabada ayaa la iskugu dhiftay kala shakiga madaxda Soomaaliland soo galay waxa uu ka abuurmay faahfaahin ayaanu daawadayaal idinkaga haynaa wararka dibadda ee warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Turkiga oo dagaalyahanada shisheeye ee kooxda Daesh u masaafurinaya qaar ka mid ah wadamadii ay u dhasheen dalalka reer galbeedka qaarkood ayaana goor hore la gaarsiiyay dagaalyahano jihaad ogayaal ahaa iyo ugu yaraan 77 ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay qarax ka dhacay gudaha waddanka Syria inta daawadayaal qodobada ugu waaweyn wararkeena ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan aanu ku bilowno madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar waxa uu ku tagay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya halkaas oo kaga qayb galayo shir ay soo qaban qaabisay Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa shirkan oo qodobo kala duwan diiradda lagu saarayo ayaa madaxweyne Farmaajo waxa la filayay in uu ka baaqsado isla markaana uunan u dhaqaaqin Kenya maadaama labada dawladood khilaaf xooggan oo dhinaca Kenya laga horinayo ka dhaxeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa waxa ay gaareen magaalada Nairobi halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen xubno ka tirsan dawladda Kenya sida xogta wararka aanu helnay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale wafdigiisa ma aynan helin maamuuskii ay doonayeen in lagu soo dhaweeyo sidoo kalena uma ay soo bixin oo garoonka diyaaradaha uguma imaanin madaxdii ay sugayeen in ay qayb ka noqdaan soo dhaweyntooda waxaa la filayay in madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta in garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta inuu kaga hortago wafdiga madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse taasi ma dhicin oo waxa soo dhaweeyay xubno diblomaasiyiin iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya ka tirsan wafdiga madaxweynaha ayaa waxa loo galbiyay inta kadib qaybaha loogu talagalay in ay degaan martida ka qayb galaya shirka Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ay soo qaban qaabisay shirkan oo ay iskugu imaanayaan hogaamiyaal wadamo kala duwan waxa soo qaban qaabisay hay'adda UNFPA taas oo qorshahan ugu tala gashay in ay iskugu yimaadaan wafuud kala duwan oo ka kala socota wadamada caalamka siiba qaaradda Afrika madaxweynaha Soomaaliya waxa uu safarkiisan u yimid waqti labada dawladood ay ka dhaxayso xaalad cakiran oo ku salaysan dhinaca xuduudaha sheegashada waddanka Kenya ee qaybo ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa waxa ugu badan ee labada dhinac isku hayaan waxa la filayay in madaxweynaha Jamhuuriyadda uu ka baaqsado safar uu ku tago magaalada Nairobi maadaama Kenya dhowr jeer ay isku dayday in ay carqaladeyso safar ay dalkaada ku marayeen diblomaasiyiin u dhashay Soomaaliya kuwaas oo inta badan dalka Kenya kaga sii gudbayay ayaga oo isticmaalaya baasaboorro wadamo kale oo ay dhalasho labaad ka haystaan taas ayaa la filayay in ay noqoto midda madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale taliskiisa
kusii hoggaamisa in wadaniyadda ay sheeganayaan ay ka dhabeeyaan islamarkaana aynan wax dhaqdhaqaaq iyo dabac ah aynan u muujin waddan doonaya inuu meel kaga dhaco xorriyadda iyo sidoo kale madax bannaanida waddan dhuleed ee dalka jamhuuriyadda soomaaliya. sida xogta wararku ay heshay waxay labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya ay ku kulmi doonaan magaalada nairobi. kulankoodana waxaa dabada ka riixaya waddamo soomaaliya daneeya iyo sidoo kale kuwo labada dowladoodba xiriir la leh. saraakiil ka socota jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaana sidoo kale qayb ka ah. waxaa la doonayaa in laga wada hadlo arrimaha muran badeedka iyo kan xuduudaha ee labada dowladood ka dhexeeya, kaas oo dowladda etoobiya ay ka mid tahay ay doonayaan in wadahadal lagu dhammeeyo. sidaanu xogta ku helnay madaxweyne uhuru kenyatta ayaan aad u danaynaynin inuu kulan la qaato madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, halka dowladaha kalena ay dabada ka riixayaan in labada madaxweyne ay kulan qaataan. sidoo kale waxay wararku tilmaamayaan in la isla soo hadal qaadi doono faragelinta dowladda kenya ay ku hayso arrimaha soomaaliya iyo sidii kenya ay kaga laaban lahayd. labada dhinac mid walbaahiba waxa uu soo bandhigay sharuudo ku aadan in uu kan kale uu la kulmo, haddii ay kulmaanna uu midba midka kale u ballan qaadayo. madaxweyne uhuru kenyatta ayaa dalbaday in madaxweynaha soomaaliya uu si rasmi u qeexo islamarkaana u caddeeyo in dowladdiisu ay aad u danaynayso in wadahadal lagu dhammeeyo kiiska biyaha ee muran badeedka waa muranka badda ee soomaaliya iyo kenya u dhexeeya, kaas oo ah biyaha soomaaliya ee kenya ay doonayso inay xalaalaysato. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdigiisa ayaa danaynayaa taabeddelkeeda kenya in ayna ay joojiso faragelinta ay ku hayso soomaaliya. sidaanu xogta ku helnana waxay isla soo hadal qaadi doonaan sidii taageerada looga jari lahaa maamulka jubbaland oo dowladda kenya ay gacansaar weyn la leedahay. haddii madaxweyne farmaajo uu soo jeediyo dalabkiisa ah in soomaaliya laga joojiyo faragelinta waddanka kenya, waxaa madaxweyne uhuru kenyatta uu dalban doonaa in asna loo ballan qaado in maxkamadda cadaaladda adduunka lagala laaban doono kiiska badda, islamarkaana labada dowladood ay wadahadal ku dhammaynayaan. kooxda aadka u doonaysa in ay qabato hoggaanka dalka ee nabad iyo nolol ayaana la aaminsan yahay in ay wakhtigan danaynayaan si walba oo ay kuraasta ugu soo laaban karaan. xog la helay ayaa tilmaamaysa in madaxweyne axmed madoobe uu weyn doono saaxiib dhow oo la ahaa waddanka kenya. waxaa la diyaarinayaa qorshaha ku aadan in la joojiyo guud ahaan duulimaadyada diyaaradaha ee tagaa magaalada nairobi, waa magaalada nairobi ka taga ee tagaa magaalada kismaayo iyo qaybo kale oo ka tirsan jubbaland. in kenya ay oggolaato qorshaha dowladda federaalka ee ku aadan arrimaha jubbaland waa qodobada ugu badan ee labada dhinac ay ka wada hadli doonaan. xogta wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal bar isla arrimaha jubbaland aanu dib ugu soo laabanne. maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay war ku aadan dacwaddii dhowaan uu u gudbiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed. guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed ayaa xaqiijiyey in xisbiga himilo qaran uu u soo gudbiyey dacwad ka dhan ah xukuumadda federaalk ee soomaaliya. xisbiga ayaa maxkamadda waxaa u gudbiyey dacwaddan 6dii bishii oktoobar ee sanadkan kadib markii garoonka diyaaradaha aadan cadde loo diiday in uu ka duulo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed, kaas oo xilligan hogaamiya xisbiga himilo qaran. sida xogta aanu ku helnay waxaa sheekh shariif loogu hanjabay in uunan ka bixi karin magaalada muqdisho islamarkaana uunan tegi karin magaalada kismaayo. guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in dacwaddaas ay u gudbiyeen hay-adda saadaasha hawada oo laga dacweeyey islamarkaana dhowaan la baabi'in doono dhegaysiga dacwaddaas. waxa uu sheegay in sharciga garsoorka dalka uu qabo haddii xisbi uu dacwad soo gudbiyo in ay u sii gudbiyaan dadka laga dacwoonayey marka ay ka soo jawaabaan dacwadda la qaadi doono. waxa uu rajo wanaagsan uu ka muujiyey in maalmaha soo socda ay bilaabi doonaan dhegaysiga dacwadda ka dhanka ah hay-adda saadaasha hawada, islamarkaana ay u soo gudbinayaan xisbiga himilo qaran oo ku aadan in madaxweyne farmaajo iyo sidoo kale taliskiisa ay hay-addaas amar ku siiyeen in madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uunan ka duuli karin garoonka diyaaradaha aadan cadde. ugu dambayn
waxa uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda sare in dacwaddan ay tahay mid sharci ah isaga oo meesha ka saaray in faragelin ay ka imaanayso dhinacyo kala duwan oo laamaha fulinta iyo garsoorka la xidhiirta. si kastaba ha ahaatee dacwadda maxkamadda loo gudbiyey ayaa ku salaysnayd dagaalka siyaasadeed ee dowladda federaalka kala dhexeeya madaxdii hore ee dalka horey u soo maamulay, waxaana hay-adda saadaasha hawada dacwadda ka soo gudbiyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. sida xogta lagu helayo waxaa muuqata in faragelin lagu hayo maxkamadda iyo go'aanka gaaridda arrimaha la xiriira kiiska lagu soo eedeeyey madaxdii hore. waa kiiska eedeymaha ay soo jeediyeen madaxdii hore oo ay ka mid yahaayeen Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud. xogta wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal. madaxweyne Axmed Madoobe oo si rasmi ah iskugu dhiibay nabad iyo nolol ayaa dalbaday lacag bari hore mar loo ballan qaaday, balse codsigiisa markaan lagama jawaabin. sida xogta aanu ku helayno madaxweynihii Jubbaland ee mar labaad isdoortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa aqbalay in doorasho lagu qabto deegaanada Jubbaland. waxa uu soo dalbaday in la siiyo lacag bari hore mar loo ballan qaaday in la siinayo haddii uu ka tanasulo isku sharaxidda hoggaanka sare ee maamul goboleedka Jubbaland. sida xogta aanu ku helayno madaxweyne Axmed Madoobe ayaa dalbaday in la siiyo lacag loo ballan qaaday markii xilka laga tuurayey madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, taas oo la tilmaamay in ay gaaraysay 5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. madaxweyne Axmed Madoobe oo markaan dareensan in looga adkaaday dhammaan dhaqdhaqaaqyadiisii uu dowladda kaga soo horjeeday ayaa markaan waxa uu codsaday in lacagtaas la siiyo si uu dalka uga baxo. sidoo kalena waxa uu dalbaday in aan wax dacwada lagu soo oogi karin maadaama uu wareejiyey taladii isla markaana ogolaaday in doorasho la qabto. villa Soomaaliya ayaa guud ahaanba ka jawaabin qodobada uu madaxweyne Axmed Madoobe asagu uu doonayo in loo meel mariyo maadaama uu si tartiiba kaga tagayo arrimaha doorashooyinka isla markaana dowladdu ay maamuli doonto doorashada Jubbaland ee dib mar kale deegaanadaasi uga dhacaysa. dowladda federaalka ayaa goor horeba waxa ay diyaarisay qorshihii lagu soo qaban lahaa madaxweyne Axmed Madoobe. sida xogta lagu helayana saraakiil Kenyaati ah ayaa la amray in guud ahaanba ay joojiyaan dhaqdhaqaaqa madaxda Jubbaland ay ka wadaan magaalada Kismaayo, ayaga oo la sheegay in ciidanka Jubbaland looga baahan yahay in wax mas'uuliyiin Jubbaland xilka aynan ka bixi karin magaalada Kismaayo. haddii ay baxaanna loo aqoonsan doono Kenya in ayadu ay ka dambayso faldambiyeedyadii ka dhacay deegaanada Jubbaland. madaxweyne Axmed Madoobe haddii awoodda laga xayuubiyo waxa uu mari doonaa halkii uu maray wasiirkiisii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, kaas oo ku xiran magaalada Muqdisho isla markaana wajahaya eedeymo dheeraad ah oo la xiriira dilal iyo dad lagu xasuuqay qaybo kala duwan oo Kismaayo, Doolow iyo meelo kale oo Jubbaland ka tirsan lagu dilay. waxaa laga yaabaa in madaxweyne Axmed Madoobe uu bedelo wasiirkiisa amniga maadaama asagu uu ahaa taliyihii guud ee ciidamada Jubbaland amaradana bixinayay. xogta wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal. ciidamada AMISOM ayaa qarax xoogan waxaa lagula eegtay gobolka Shabeellaha Hoose. deegaanka Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu soo waramayaa in qarax dhimasho iyo dhaawac sababay lagula eegtay ciidanka midowga Afrika AMISOM. gaari nooca dagaalka ah oo ciidamadu ay wateen waxaa burburisay miino xoogan taas oo wadada lagu aasay, waxaana ilig deegaanka ay xaqiijiyeen inay arkayeen gaarigaas oo uura madow ay korkiisa ka baxayso. tiro dhaawacyo ah iyo sidoo kale askar ku dhimatay qaraxaas ayaa lagu daabduleeyay qaybaha koloyadii kale ee la soconayay gaariga qaraxu qabsaday. kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas, waxayna sheegeen inay ku dileen tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika AMISOM gaar ahaan ciidanka waddanka Uganda. warar kala duwan ayaa tilmaamaya in ugu yaraan 10 askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxaas. waxaa soo baxaysa cabsi xoogan oo ka taagan madaxtooyada Garowe ee Puntland, taas oo la soo diristay madaxdii asbuuc ka hor dabaaldegayay kadib markii uu meesha ka baxay guud ahaan khilaafkii ka dhaxeeyay villa Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Kenya oo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay miciin bidi jireen. ayaa waxaa soo baxday cabsi xoogan oo ah in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dini iyo xukuumaddiisu aynan sina uga badbaadaynin gacanta villa Soomaaliya. nabad iyo nolol oo markaani guushii ugu weynayd u dabaaldegtay isla markaana gacanta ku dhigtay 4 maamul goboleed ayaa u soo jeesatay
sidii ay u qaban lahayd Siciid Cabdullaahi Dini oo dhowaan shakhsigii aadka u taageersanaa dowladda meesha ka saaray. waxay wararka la helayo ay tilmaamayaan in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dini loo diray waraaq ay ku xusan tahay hanjabaad culus oo ku aadan in marnaba uunan si walba oo uu sameeyay xilka uusan ku sii hayn doonin. waraaqda la qoray ayay wararku tilmaamayaan in loo sheegay in guud ahaan dowladdu ay dalka maamulkiisa la wareegtay, isla markaana hadda wixii ka dambeeya aynan jirin cid ka baxsan awoodaha dowladda federaalka oo wax maamuli karta. waraaqdu waxay si toos ah u muujinaysaa in dowladdu haddii Jubbaland ay ku guuleysatay oo gacanta ay ku dhigtay uunan Siciid Cabdullaahi Dini ka sii shaqayn doonin caasimadda Garowe. madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dini ayaa rajo weyn ka qabay in uu gacan saar ka helo dowladaha Kenya iyo Itoobiya, balse wafdiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee magaalada Nairobi ayaa rajadaasi ciid ku shubay. horay waxaa aad iskugu dhawaaday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waqtigaana waxaa bilowday wada hadallo si dadban iyo si toos ah u socda oo labada dowladood oo Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya. rajada Siciid Cabdullaahi Dini ee ah in uu taageero helo waxay ku aruurtay oo kaliya gacanta waddanka Imaaraadka Carabta oo laga yaabo asna inuu joojiyo, maadaama ay muuqato saxadii siyaasadda Puntland in ay ka sii baxayaan guud ahaan shakhsiyaadka asaga taageersanaa. xogta wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal. khilaafkii ugu xoogganaa ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Saylici ayaa markaan qoorta iskula jira, waxaana midba midka kale uu ku eedeynayaa qarandumisnimo iyo falal kale oo majaxaabinaya dhammaan geedi socodkii qarannimo ee Somaliland. sida xogta lagu helayo xafiisyo ka mid ah madaxtooyada ayaa shaqadooda joojiyay kadib markii labadan mas'uul ay mid walba hiba u muuqdeen qodobo kan kale uu ku dhaliilayo. waxaana laga yaabaa in sida muuqata meesha uu ka baxo wadajirkii madaxdan ee ka tirsanaa xisbiga kulmiye ee muddada talada ku naaloonayay. sida xogta lagu helayo waxaa shaqada joojiyay dhammaan xafiisyadii ay saameynta ku lahaayeen amarada labada mas'uul ee Somaliland ugu sarreysa. Cabdiraxmaan Saylici ayaa aad uga soo horjeestay dhaqdhaqaaqyada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale nabadgelyada intaba ah. waxa uu dareensan yahay in dalka ay ka dhaceen dagaallo iyo sidoo kale isdil badan oo beeluhu ay isku geysteen, taas oo muujinaysa in xukuumaddu ay ka gaabisay waajibaadka xagga amniga ahaa. musuqmaasuq xooggan oo lagu sameeyay hantida qaranka iyo sidoo kale in xilalka la soo magacaabay iyo isku shaandhayntii lagu sameeyay diblomaasiyiinta wadamada shisheeye u joogay Somaliland in ay ahayd mid haba yaraatee cadaaladda aan meelna ka haysan. labada dhinac ayaa markaan waxaa ku dhex jira xubno ka kala tirsan xukuumadda, baarlamaanka iyo sidoo kale golaha guurtida. kulamo labada dhinac looga hadlayay arrintooda iyo dib u heshiisantooda ayaana guul daraystay. xogta wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal. ugu yaraan 10 dowladood ayaa lacagtii ugu badnayd waxay u soo daabulayaan Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan abaabulka dagaal sokeeye oo looga dhawaaqay magaalada Muqdisho kadib markii siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay ay iclaamiyeen in ay dowladda dagaal la galayaan. waxaa bilowday qorshaha ay arrintaasi ku birataarayaan wadamo cadaawad guun ah ay kala dhaxayso Soomaaliya, kuwaas oo la tilmaamay in ay ka mid yihiin ugu yaraan 4 dowladood oo ka tirsan wadamada qaaradda Afrika iyo sidoo kale 6 dowladood oo ka tirsan dalalka Carabta, kuwaas oo ilaha aanu ka soo xignay xogtan ay naga dalbadeen in si rasmi ah aanan magacyadooda u soo shaacin, maadaama weli ay socoto hawsha ku aadan maalgelinta lagu sameynayo qorshaha dagaal oogista ee magaalada Muqdisho. koox sida la tilmaamay calooshoodu shaqaystayaal ah oo ka soo horjeeda deganaanshaha Soomaaliya isla markaana ah Soomaali ayaa loo adeegsan doonaa dagaalkaas iyo maalgelintiisa, iyada oo la iska horkeenayo mucaaradka iyo dowladda. waa waxa ugu badan ee shisheeyuhu uu ka faa'iideysan doono. sidoo kale dadka magaalada Muqdisho ayaa loo sheegi doonaa in dalka ay ka jirto dowlad kaligii talis ah, taas oo doonaysa in guud ahaan ay ku tumato xuquuqda ay leeyihiin dadka gobolka Banaadir. waana qaababka kale ee kacdoonka dagaal lagu sii abaabulayo. sidoo kale waxaa la tusi doonaa siyaasiyiinta
iyo qaybaha bulshadaba in dowladdu ay ka gaabisay in doorasho ay qabato sanadka soo aadan isla markaana madaxda dowladdu ay doonayaan in ay xilka sii haystaan waxaana dadka la tusi doonaa in ay dagaal iyo kacdoon ay sameeyaan sidoo kale waxaa qorshaha shisheeyuhu uu yahay in dadka laga dhaadhiciyo in dowladdu ay bartilmaameedsanayso guud ahaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood ay meesha ka saartay kuwo kalena ay ku daba jirto sidii ay u soo qaban lahayd taas oo la tusi doono in micnaheedu uu yahay in dalka guud ahaan taladiisu ay ku aruuri doonto labada mas-uul ee fadhigoodu uu yahay villa Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare xasan cali khayre xogta wararka ayaa daawanaysaan daawadayaal bal iminkana wararka dibadda dowladda turkiga ayaa bilowday sidii ay u masaafurin lahayd dagaal ogayaasha shisheeye ee ka dagaalamayay qaybo ka tirsan xuduudda ay wadaagaan turkiga iyo sidoo kale Syria waxay dowladda Mareykanku ay heli doontaa jihaad ogayaal u dhashay wadankeeda oo Ankara ay iska soo tarxiishay isla markaana ay ku qabatay dagaalkii xoogganaa ee ciidamada Turkigu ay la galeen jabhadda Kurdiyiinta iyo sidoo kale dagaalo kale oo lala galay kooxda ISIS ee ka dagaalanta qaybo ka tirsan wadanka Syria sidoo kale Faransiiska Ingiriiska iyo dalal kale ayaa loo gudbin doonaa muwaadiniin u dhashay kuwaas oo dagaal ogayaal ahaa ugu dambeyntiina 77 ruux ayaa ku dhimatay warar ka dhacay qaybo kamid ah wadanka Syria kooxda xuquuqul aadanaha ee la socota dhaqdhaqaaqyada ka socda wadanka Syria ayaa xaqiijiyay in warar ka dhacay magaalada Deir al-Sur in lagu dilay ugu yaraan 77 ruux 7 kamid ah dadkaas ayaa dhimatay halka 70 kalena dhaawac uu soo gaaray waxaana la tilmaamay in loo adeegsaday qarax xooggan oo dadkaasi lala eegtay guud ahaan daawadayaal intaas waxaa ku dhan warka idin kaga imaanaya xogta wararka nabadgelyo